Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka muuqaalkeena maanta waxaan idinku tusayaa sida muuqaalka aad horay u soo dhigtay YouTube-kaaga lagu sameeyo blur ama loo qariyo wajiyada iyo shayada aadan u baahnayn in ay ka soo muuqdaan muuqaalkaaga. Daawasho wanaagsan. magacaygu waa Maxamed Maxamuud. channelkani waa Caaqil Tech. kanaalkani waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo ku saabsan teknoolajiyada sida isticmaalida apps-ka iyo sawir editing-ka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. Mahadsanid. YouTube-ka haddii loo fiiriyo waagii hore iyo haddeertaani wuxuu aad u fudud yahay haddeertaani, waayo waxaa laga dhigay mid si fudud qof kasta u isticmaali karo. Marka haddaan u soo laabto su'aashani oo na dhehayso maxaan u isticmaalaynaa blur, hadduu ahaan lahaa face blur ama object blur, waxaan u isticmaalaynaa tusaalooyinkan soo socda. haddii kugu dhacdo markaasi ayaad u baahanaysaa in aad isticmaashid blur. tusaalaha koowaad, muuqaal aad soo dhigtay bartaada YouTube-ka ayaa waxaa ka soo muuqday qof islaameed wejigiisa. markaan qof islaameed leeyahay waxaan ula jeedaa qof aanan muuqaalkaaga ku jirinba marka aad sameynaysay, laakiin si kadis ah ugu muuqday kaamirada. waxaan u baahannahay marka qofkaasi oo kale in aan ka saarno, maxaa yeelay laba dhibaato ayuu leeyahay. midda koowaad wuxuu nagu qabsan karaa copyright oo dhibaato channelkeena ayuu ku yeelan karaa. teeda kale waxaaba fiicanba haddii uusan qofka raali ka ahayn in aadan isticmaalin wejigiisa iyo muuqaalkiisaba. tusaalaha labaad oo aad uga baahan kartid marka blurka waxa weeyaa in aad markaad muuqaalka edit gareynaysay oo kale ayaad waxaad ilowdayba meelaha qaar oo muhiimka ah inaad dadka ka qarisid oo kale, sida numberskaaga oo kale meelay ka soo muuqdeen ama addresskaaga meeloo ka soo muuqday oo kale. wixii waxaad ilowdayba inaad dadka ka qarisid, waxaad u baahanaysaa marka adigoo videogii aadan iska delete gareynin in aad wixiina dadka ka qarsatid, videogaagana views oo sidiisa ku ahaado kaliya in aad qarisid marka waxyaabaha muhiimka ku ah oo videogaas ka soo muuqdo. markaasina waad u baahanaysaa marka blurka. waxaan ku tusayaa marka sidaad u isticmaali lahayd blurka. waxaad tagtaa marka channelkaaga, waxaad soo doorataa muuqaalka aad rabtid inaad u samaysid blurka. markaad soo dooratid muuqaalka kadib waxaad taabataa edit video. markaasi kadib wuxuu ku geynayaa marka halkaani waxaad sii taabanaysaa editor meeshay ku qoran tahay. kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani sida shaashada idinkaaga muuqato. hadda waxaad arkaysiin marka videogii waxaan dooranayaa marka meel aan weji ka arki karo oo kale. waad aragtaan marka hadda saddexdan qof oo kale ayaan waxaan rabaa in aan wejiyadooda aan u sameeyo marka blur. waxaan taabanayaa marka blur parties of your video. marka wuxuu yiri labadaani qayb mid dooro oo kala ah face blur iyo custom blur. face blurka waxa waaye marka aad rabtid inaad wejiga oo kaliya aad shucaaca aad ku furtid, laakiin custom blurka waxa waaye markaad u baahan tahay shay aanan ahayn sida wejiga kale aanan ahayn sida mobile oo kale, calaamad meel ka soo muuqato oo kale, waxyaabahaas oo kale markaad u baahan tahay inaad shucaaca aad gelisid waxaad taabanaysaa marka custom blur. ugu horreyn hadda waxaan ku hormaraynaa marka anaga face blur. waad aragtaan hadda wuxuu soo bandhigay marka interface oo muuqaalkani ku guda jirto ama ka soo muuqatay. marka waxaad dooranaysaa marka faceska aad u baahan tahay in aad shucaaca aad gelisid. aniga hadda waxaan gelinayaa marka saddexdaani. kadib waxaad taabanaysaa apply. waad aragtaan marka hadda wuu qariyay ama shucaac ayuu geliyay wejiyadii. ma aqoonsan karna marka hadda wejiyadoodii, maxaa yeelay shucaac ayuu geliyay si uu noogu qariyo awgood. haddana waxaan isla sameynaynaa marka custom blur. waxaad taabataa marka calaamada blur ama balaaska. kadib waxaad ka sii doorataa marka custom blur.
marka taabati marka custom blurka waxa ku soo muuqanayo marka settingkani cusub waxa laga rabaa marka settingkani shuruudihiisa inaad buuxisid sida inaad dooratid start bountiga meesha lagaaga bilaabayo blurka iyo meesha lagu ekeynayo blurkaasi intaasi ayaad kala dooranaysaa horta marka koowaad. marka xigta waxaan dooranaysaa blur shape-ka aad isticmaali lahayd blur ahaan ayaad dooranaysaa marka sida in aad sameysid oval ama rectangle-ku waa sida qaab afargees camal oo dhinac u dheer yahay, ovalkana waxa waaye sida qaab koobabin camal ah. labadaasi marka shape-kaaga midka u eg yahay ayaad dooranaysaa. aniga hadda waxaan ku dhaafeynaa rectangle-ka maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan qarino mobilka qofka isticmaalayo. mobilkana sida qaab rectangle camal ayuu u yaalaa. kadib rectangle ayaan taabanayaa. meesha kale xigtana waxa waaye blur behavior. waxa blur gareynaysid ama aad rabtid in aad qarisid ma wax hal meel taagana mise wax dhaqaaqayo waa labadaas ayaad kala dooranaysaa. track object waxa waaye shay dhaqaaqaya. meesha kalena waxa ku qoran fixed blur position waxa waaye wax hal meel taagan aanan dhaqaaqaynin oo kale markaad rabtid inaad blur saartid oo kale. anaga marka hadda qofka wax yar dhaqaaq ayaa ku jiro marka mobilka marka waxaan dooranaynaa track object. marka intaas buuxisid hadda waxaan buuxinay marka inta nagala rabay waxaan taabanayaa marka play. waad aragteen sida aan ugu sameeyay custom blurkana meeshan ayaa waxaan ka dareemayaa meel khaldana sii galayo iyadana waxaan sameynayaa inaan soo gaabiyo. hadda waan la simay marka muuqaalka iyo blurka isla simay. kadib waxaad taabanaysaa save kale ayaad sii taabanaysaa. marka wuxuu qaadanayaa saacadooyin si uu u sameeyo marka bularadani oo u soo update gareeyo videoga. viewskana kaama khasaarayo midaasna ku fikir. muuqaalkeena marka halkan ayuu ku eg yahay. haddii aad ka heshay muuqaalka si share garee oo dadka asxaabtaada kale la wadaag. mahadsanid.